istikfaartu markay cibaadaadka daba dhacdo waa sidata oo cibaadaadka iyo daacaadka waaweyn ee layna faray oo dhan waxa daba yaalla istikfaar maalan xajku waa arkaanul islaamku ka mid yahay cibaadaadka la sameeyo kuwa ugu waaweyn buu ku jiraa goob la istaago goobaha ugu waaweyn ee bini aadam ilaahay caabudaya istaagana carafaa ka mid ah markaad carafo istaagtay ee ilaahay maantoo dhan weynaynaysay ee baryaysay baa ilaahay wuxuuna yidhi uma afiiduu min xayثu afaada الnaas واstagfiru اllaha in allaha غafuur raxiim istaaga baa ilaahay yidhi halka dadku istaagayo qurayshi waxay odhan jirtay xarabka annagu ka bixi mayno carafi xarabka way ka baxsanta markaa muna iyo intaan xarabkaannu joogaynaa waxaa la yidhi baxa oo taga halka dadku istaagayo oo weliba halkaa markaa istaagtaane soo dareertaane dib u soo noqotaan waxaa camal samayseen oo dhan waxaa ku dartaan istikfaar baa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala yacni xaj innagoo ku jirna baynu ka dabageynaynaa maxay istikfaar waxaa layna baray oo nebigu ina baray calayhi salaatu wasalaam salaadda markaynu tukanno waxa koowaad aynu qabannaa waa maxay nebi moxamed markuu salaamo naqsado kow 3 jeer buu odhan jiray astaqfirullah 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 ma macsi buu samaynaya oo ka astaqfirulaysanayay maya salaad buu ku jiray laakiin waa maxay wuxuu leeyahay ilaahu xaqaagii weli maan gudin anigu intii aan awoodayay waan sameeyey waynu soo dadaallo weysaysanno soo kacnayo ilaahay hor nimi ilaahay way soo taagnay intaynu awoodi karaynay waa dadaallo waa samaynay laakiin waxaynu rumaysannay marar badan baynu baxaynay oo qalbigeennu meel kala jirnay mar baynu waxaynu akhriyaynay ayna fahmaynay mar baynu adduun iskaga mashquulay haddana salaadaynu wadnay dabeetana waxaad leedahay ilaahu intaasun baan maanta awoodaya intaa iga aqba waxaad ka dabageynaysaa markaa maxay istikfaar markaad salaamo naqsatayba waxaad leedahay ilaahu xaqaagii maan gudanin istikfaartani waa ictidaar markaaad raacinayso ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa kuwa jannada gelaya ina almuttaqiina fii jannaatin wacuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum innahum kaanuu qabla dalika muxsiniin kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun ilahay wuxuu idhi kuwa muttaqiinta ah ee alle ka cabsaday aakhiro beero iyo ilo biyood iyo jannooyin bay leeyihin aakhidiina maa aataahum rabbuhum waxay qaadanayaan wixii alla siiyey baa la yidhi nicmo ah ayay aakhiro helayaan laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sababta waa maxay innahum kaanuu qabla dalika muxsiniin adduunkii markii ay joogeen ayay ahaayeen dad ixsaanka sameeya muxsiniina kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun habeenkii in yar bay seexan jireen baa ilaahay yidhi u fiirso haddaba erayga la daba dhigay wabilasxaari hum yastakfiruun waqtu suxuurka markay gaadhana istikfaar bay u fadhiisan jireen habeen oo dhan intuu cibaadaysto ayuu wuxuu ku gebagabaynayaa salaaddiisii istikfaar uu leeyahay ilaahu intaasaan la imi xaqaaga se maan gudanin waxaanaan sameeyey ee caawo dhan la soo jeeday ilaahu maaha adiga xaqaagii waxaad xaq u lahay saa daraaddeed ayay istikfaarka dabageynayeen ilaahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarmay faclam annahu laa ilaaha ila allah ogow alle inuu keligii yahay ka xaq lagu caabudo masaladaa yaqiinso oo yeel oo wastakfir lidembika walilmu'miniin baa layidhi ka dabagee haddaba ayuha alaxibba masalada istikfaartana waxaan ku khatimayaa nebi moxamed 23 sannadood buu jihaatamayey oo ilaahay diintiisa wax weliba ku soo gaadhay oo loo dhibay oo loogu hijrooday oo dagaal nooc waliba uu soo galay oo siiradan aynu akhrinee tirada badan leh ay soo martay 23 sano kadib aakhir suurad ahaan nebi moxamed ugu soo degta bal waxaa alla faraya u fiirsa haddaba suuraddii ugu dambaysay qur-aanka iyadoo suuradoo kaamila soo degta weeyaan waa suurati nasr ilaahay wuxuu ku yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam idaa jaa'a nasru اllahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu innahu kaana tawaaba markaad aragta ee uu kuu yimaado baa ilahay yidhi ilaahay guushiisu marka hore nasriga iyo fatxigaba ilaahay baa siiyey waa min nicam illaah ilaahay guushiisa iyo furashadiisu markay kuu timi aad maka iyo adduunba furatay oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja oo aad aragto dadka oo diinta koox koox u gelaya waagii hore islaamku uu bilow ahaa nebi moxamed isagaabaa la caydhsanayay kadib qof baa qarsanayay qof baa intuu islaamu odhanayay orod reerihiinnii qabo barigaad maqasho waa guulaystuunii kaalay saasay ku socotay
ilaa iyo ay soo gaadhay markii dambe qabiile in loo islaamo afwaaj koox caamil wufuud nabiga calayhi salaatu wasalaam qabaa'il dhan oo maca salaadiintoodii oo waayeelkoodiiba wataa u yimo soo islaamay haddaba markaad sidaa aragta maxay samee baa ilaahay ku yidhi aadanaha aan rabbigood xoog u qadarini markay guulaystaan maxay sameeyaan badhbadhaadhna bay qaadaande maalinta xorriyaadka maxaa la sameeyaa muruqa la muujiyaa iyo waxaad xoog leedahay waa qofka oo isla weyn wuxuu qabtay ay la weyn tahay markay calanka helaan balkaalay canabay bay qaadaan calanka walaale halkuu qofku isdhuldhigi lahaa odhan lahaa ilaahu adaa guushiiyo nasrigay siiyey ayuu kibir ka qaadaa laakiin nebi maxamed waxaa la leeyahay markaad guulaysatay maantuma ka furanaya guulaysanayey neefku fuushanaa isagoo ku dul sujuudsanoo madaxu hoos u laalaadu nebigu soo galay calayhi salaatu isagoo mutakabbiroo isweynaynaya muu soo gelin saa daraaddeed ilaahay wuxuu ku yidhi markaad guusha hesho ee aad aragto dadkoo diinta koox u soo gelaya maxay samee baa lagu yidhi fasabbix bixamdi rabbik tasbiixso adigoo ku marayo ku dheehaya ilaahay xamdigiisa tasbiixdu waa maxay tasbiixdu waa tansiih waa ilaahay oo waxaan u cuntamin aad ka nasahayso ilaahay oo aad xumo iyo ceeb leedahay waa ka hufanyi waa ka dheeriye naqsi male ilaahay taxmiidu ama alxamdu lilahna waa maxay waa ilaahay oo aad ammaanayso bikamaalihi wa kamaali afcaalihi aad weynaynayso ku weynaynayso acmaashiisa fiican idan waxaa la yidhi markaad guusha aragto ee dadku diinta koox u galaan ilaahay weyneeyo xumo ka huf ammaan oo ammaantu xaq u leeyahay ammaan adiguna wixii aad camal la timi wastakfirhu innahu kaana tawaaba ilaahay u toobadkeen baa la leeyahay oo istikfaarso wixii ilaahay waan xaqaaga ka gaabiyey wixii camal tuurle aan la imi waxaan kuu cuntamayna aan sameeyey ilaahayow iga aqbal dheh qofka muslim haddii nebi maxamed sidaa lagu leeyay innaga maxaad u malaynaysaa markaynu soo soonnay ee salaadnay caynkan haddii nebi maxamed oo intuu diintan u dagaalamay oo naf iyo nafiisba u huray oo 23 sannadood waday la yidhi arrinku hadduu kuu dhammaystirmay waxaad ku gebagabaysataa baa la yidhi ilaahay ammaantiisana ha ka daalin wixii kaa uun gaabis uun si uun kaa noqon karana waxaad tidhahdaa ilaahayow intaasaan awooday istikfaar iyo toobadna kaale